بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أدوان كم هذا قينا أنا ساعد بيدي يعني وحنا ذكوا يعني إنه إذا سوق عرشينه صدح قضب شردير ونساك يعني صدح حسبي صدح قضب وأهرمه هذا الكشرة ككوبات waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu naga nabadgeliyo aafada cudurkan la yiraahdo coronavirus ee adduunka oo dhan saameeyay ilaahay baa awood leh inuu arin aafadiisa ilaahay dhammaanteen in naga nabadgeliyo wixii muslimiin ka nabadgeliyo caalamkuna ka nabadgeliyo ummadda Soomaaliland oo inteena ismaqlaysaa ka wada joogta kowkan hayna waxaan leeyahay aynu raacano talooyinka ay soo bixiyeen dhakhaatiirteena iyo kuwa adduunka oo dhan si looga nabad galo dhibaatadiisa maanta waxaynu ognahay adduunyada dal aanu saameeyay ma jirto kama duwanin adduunyada dhan uu saameeyay ilaahay mahadi ilaa hadda wax bukaana ma hayno laakiin waxa jirta inuu bukaanku muddo qaato uu mar qura ku qarxo si tiro badan sidii ku dhacday dalka Ingiriiska oo kale oo muddo hurdo oo aan la garanaynin cid bugta iyo cid kale waa wax mar walba soo bixi kara si taa looga digtoonaado waxa la isku raacay in dadka bini'aadamku sida qurun kaga nabadgelaya hadduu yimaadana khasaarihiisu ku yaraanayaan waa in la kala fogaado waxaa la soo ogaaday waxaa laga qaadaa cudurada kala dheer yahay wuxuu u faafaa si cudur kasta oo kala u faafo cudurada qaar sida TB oo kale iyo hargabka qaarkii wuxuu ku gudbaa hawada oo marka la qufco la kala qaada uu ku gudbaya qufci cudurada qaar oo kuwa maqaarka u badan wax lagu kala qaada taabashada iyo labada qof markay taabtaan ama uu meel taabto qofku oo meeshii uu taabtay aad ka daba taabato taana wuu ku faafaa oo waa dhaqan uu leeyahay cudurradii kale cudurrada qaar waxay ku faafaan biyaha oo ay soo raacaan ama cuntada oo ay soo raacaan oo dabeetana cudur ka dilaaco tiina wuu la wadaagaa markaas si kastoo cudur u faafo wuu faafaa dhibaato badanna wuu leeyahay dhaqaalihii caafimaadkii isku xidhaashii qoyska ama ehelka oo inaga dad muslimin nahay dhaqan beer leenahay aabo hooyo walaal abti adeer war isku xidhana marka dadka isku xidhanina deeyo wada joogan mar walba oo isku dhagay tiina waxa la leeyahay kala fogaado marka noloshiibu si walba u saameeyay dhibaatada ugu leeyahay oo inagu adag dhaqan ahaan marka dadka fariintan u farayna waxa weeye si aad u nabad gasho dadka aynu nabad gelina hala raaco sida quraan ku baxsan karno hala ilaaliyo oo kamid tahay meel kasto lagu soo ururay hala yareeyo meel aanan yareyn kareen baa jirto deegaanka guriga way nagu ciliiri guriyaha dadka oo jaarkii labadii guriga isku dhagan yihiin dadkeenu waa qoysas balaaran toban qof baa meel wada seexda waa dhaqan iyo taageero leeyahay ma kari karno laakiin meelaha aan kari karno inuu kala fogaano meelaha shaqada kamida waxa kamida waxa meel lagu ciyaarayo la sugi yimaado waxa kamida maqaaxiyaasha lagu cabiya kuraasta la soo ururaayo waxa kamida hudheelkii oo ciliiriya cuntada in la isku kala qaato waxa kamida marka dukaankii wax laga iibsanayo in kuyu kala fogaado la kala durko waxa kamida oo inoogu daran goobaha qaadka marka la iibsanayo konton baa la isku dul taagay marka la mafaarisho ninkii qayray ma doonayo inuu gooro qayro waa inuu meel kula urura si aad dad nabad gasho ubadkaaga u nabad geliso waayeelkeena jilicsan uu nabad galo waxaynu u baahanahay inuu waxyaalaha ilaalino intaan dhaqtaradu waa ka hadlayaan inana waa ka hadlaynaa cod hortiba urmo la sii gangantaa intaanu intaa aynu iska sii qabanno ilaa hadda ilaahay mahadi weer joognaa weli waan wadanahay waa sala filaya saacad kasta dadka kama duwanin dal kama duwanin talabaad hadiiba ay wax yimaadaan cudur la arkanayaan la sasin oo qofkii bukay isaguna ha islaaliyo dadkooduna ha u ogolaadeen inay ilaaliyaan waxaanu nahay dad isu naxariis badan
qofka bukooda waa lagu wada yaacaa waa la wada dultegayaa waa la wada dhowaanayaa hooyada awowga abtiga walaalka bukooda kama fogaan kartid laakiin cudurkan wuxuu ina farayaa dhakhaatiirta ka shaqaysa mooyaane in qofkii meel gaar lagu hayo ma aha waxaanu jaraynaa naxariistii iyo ehlimadii iyo diintu ayna faraysay waalidka laakiin waa masiibo dee u gudbaysa dadka kale waxyaalaha inaynu aada iyo aada u maqalno waanadaa wadajir baan u soo jeedinayna danteennaa ku jirta in badanna waa laga hadlay dhibaatooyinka uu keeno ee ama marka la dadaalayo maaragtay dadkan guddida ka shaqeynaysa ee dadka dhibaatooyinka soo gaarana dalku maanta wuxuu wada shaqeynayaa si qarannimo ah dhakhaatiirtu waxay bixiyaan dowladdu furirsana ha loo dhegan wulaado oo qofku yuu dan u leeyahay ka raacin oonu muran iyo ergeegta ka keenin waa badbaaday qaranka o dhan maanta waxa aynu aad ogtihiin in Ethiopia wixii arday joogtay oo dhan ee aan dalkeeda ahayn jaamacadii la xidhay la yiri waliba ha la celiyo meeshii ha tago arbacadii waan warkaa helay khamiistina waxaan u diyaarinay baabuurtii ka soo qaaday lahayd Ethiopia toddobadii bas oo horeeyay maanta wajaalay joogaan kuwii kale caaway soo galayaan 40 saacadood soo socod 300 oo arday ay malayo reer Soomaaliland Hargeysa la keenay doona deetana waxay ka digaan deegaamadoodii waxa lagu hubinayaa wajaale xanuunkooda wixii laga shakiyo dhakhaatiir badan baa tagtay ciidanka ay tagay dabcan waa la cadibaya muddo ay joogayaan meesha inta la baarayo maalmo ma aha laakiin waxaa la doonayaa inay iyaguna u horansamaan awaamirta waxaa ka daran ehelkooda ka hortagaya ama soo dhaweynaya oo dadkeen wada caadifad badan oo jecel ma qaadanaya awaamirtii qofkii ka banaynaaba wuxuu leeyahay meenkayga diidiisa dhibaato ma qabaan dhammaantooda caafimaad qabaan siday xaggaa kaga soo baxeen in badanna way hadhay wixii maraya waa la soo diray waxaa intaa dheer oo idiin sheegaya dhammaan badanka Soomaaliya ardaydeedii oo dhan oo aan diyaar garow malaha helin ama si wax u dhaceen in badan baa soo socota oo ku soo aadan wajaale oo bas soo kaleesto ay soo aabray iyagana haddii ay wajaale noogu yimaadaan qofkii muslina ee dhibaataysan ama bini aadmiya ama Soomaaliya ee dhibaata wadana waynu taageeraynaa iyagana waxay ku dadaalaan inaan toos u gudbino waanu la hadalay gobolada dhidhow oo dhan aan leeyahay haddii dariiqaan soo marno idina u diyaar garoobo horan oo gudbiya iyaga haddii aan la yiraahdo wajaale ilaa toos wadada laamida ah inaan gaadhko diyaarnaa baan ku talagalnaa hawlahaas ay noo yaala oo aanu doonayno dhammaanteen inuu ka midoono taasi waa ta koobaad ee culeyskeeda ee maanta saddex gudoomiye xisbi iyo anigu madaxweyne waanu ku joogno oo ka midaysana farinta ka labaad maanta waxa soo baxay oo ay soo saaray World Bank adduunku in dawladii loo jiray Somali Republic ee 60kii la aasaasay ee 1990kiina kala burburtay in laga dhaafay deybihii xoogoodii mucaawinad toosan la siinayo warqada ay soo qoreen ay soo baahiyeen mara waa akhrideene ereyga Somaliland si cad uga maysaarin markay sheegeen Soomaaliya iyo shantooda maamul gobol waxay dhahan Somaliland 1990kii bay sheegtay inay ka baxday labana ixtiraafin waanu ka saaray oo dawlad gaar ah soo sanad gaar u taagan kuma cadda waxaanu halkan ka gudbinaa fariin hadaan reer Somaliland nahay dawladda Somali Republic la oran jiray ee markii dambana ku qurtay magaca Somali Democratic Republic 1990kii bay kala baxday Somaliland oo markii hore dawlad gaar ah u beertay ahayd ilaa 1990 goor u taagantay اعترافka siyaasigii iyo cid aan ictiraafada jirtaa ilaahayna waan ictiraafay anaguna waanu ictiraafnay soddonkaas sanana waanu waliba kala joognay idina iyagana waa ogyihiin ilaahayna waa ogyahay anana waa ogna banka adduunka waxaan leenahay laba dawladda xilkiisu tagay kooiskaashka kala baxay mid walba sideeda iyo gaarkeeda looga macaamilaya Soomaaliya hadii la leeyahay kuma ictiraafsano kala macaamili mayno Soomaaliya waxa ka dhaafteen iyo wax qaban sanad ka idin taala anagu Soomaaliland baan dawladda gaarka ahayd baan markii hore tagnay wixii lagala hadlayo annagana lagala xaajoonay naloo soo marin maayo cid kale madax banaanida iyo ictiraafka asheenaysa waa kan ka baxnay ee ka dagaalanay ee goordo uga joogno ee dawladda ka dhisanay taasna waa fariinta labaad oo u diray banka adduunka fariinta saddexaad waxa weeye maanta golaha wakiiladu wuxuu soo diiday fadhigoodii ay fariisteen labadii xubnood ee labada xisbi mucaaradka soo gudbiyeen oo ay ahayd laga suwaayeen ansixiyaan si loo dhaqaajiyo hawshii komishanka in badan dhibaateedu inuu raagtay golaha wakiiladu waa sharci way madax banaan yihiin go'aankooda iga xoro
sharciyan taa waa arkaynaa waana qabanayna wixii ay soo saareen oo ma diidanin laakiin waxa taala talada dalka iyo danta dalku maanta waxay ku jirtaa inaanu isu wadano komishanka dhibtiisa wuxuu ina gaarsiiyey 2 sanadood dheeraad wajiyaal badan buu leeyahay ayuu lahaa khilaaf badan baa ka jiray dalkoo dhan baa ku jira dhibaato 2 sanadood iyo hay'ad oo khilaaf caankaas oo laga murmaayay waynu soo afjarray iyadoo oo qaranku maanta midaysan yahay oo wax walba laga heshiiyey oo xisbiyada mucaaradka la ogoleysiiyay in labadii keenay ogolaadeen oo ummadii kale raacsanayd iyo wixii khilaaf aanu dhamaynay oo ay ahayd midnimada inaynu u dhaqaaqno oo aynu doorasho eegsano haddii ilaahay balaada naga dul qaado midnimada iyo wada jirka dalkuna ku jireen maanta inaan sixiyaan arrintaasi kama naafiri qarankuna kama firi sabab loo soo celiyay nimanka waa saddex go'e oo xar wixii uu gaaray maanta taas way dhacday tala looga noqon qaran ahaan iyo xisbiyaal ahaan iyo xukuumad ahaan iyo wakiilada laftooda talaynu isugu noqon oo maxaa inoo dareennu eegi taana intaasaanu ka leenahay waa golaha waa ixtiraamayna laakiin arrintaa talo ayaynu iska noqonaynaa qaran iyo to xisbiyaalba waxaan uga mahadnaqay labada xisbi guddoomiyaashooda la jooga arrintaa inaan maanta si dheer uga wada hadalnay dantuna ay ku jirto inaanay noqon midi ku taag iyo ka ficil talo ku falceli xaaladda maanta aynu ku jirno ay ku habboon tahay qofkii qalad tirsada xitaa in la isku soo gaaro oo la yidhaha war maxaynu ka yeelaa waxaas aan ahay oo qof ka tirsan lagu noqdo way ku mahadsan yihiin arrintaas si qaran baanu talo dambe uga yeelanaynaa oo la isugu noqonayaa golahana wuxuu ka mid yahay qaranka talo dambe baanu ka gaari doonaa waanu ku soo celin doonaa arrin dambe oo arrintaa maxaa laga yeelaaya sidaa qaranku isu raacaa maxaa lagu midoobaa maxaanu surxaanteena ku yaraynaa ayaanu ka geli doonaa aad iyo aad baa u mahadsantihi وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين maanta madaxweynaha iyo labada guddoomiye xisbi qaran fariin isku mid ay idin sideen fariintiina madaxweynaha gudbiyey marka intaa uu madaxweynuhu yidhi waa inaanu isku waafaqsannahay kuna garab taagannahay fariinta koowaad ee ku saabsan caafimaadka waxaan shacbiga Soomaaliland ugu celinayaa inuu xilku ina wada saaran yahay madaxweynuhu waa madaxweyne qaranka xukuumaduna waa xukuumadeennii waajibaadka ugu weyn ee ka hortagga ilaahay naga badbaadiyey cudurkaas wuxuu saaran yahay xukuumadda laakiin waa waajib qof kastoo muwaadina saaran xukuumaddana waxaa looga baahan yahay intii ay qabatay in ka badan inay qabato diyaar garow intii ka badan inay samayso dadaal intii ka badan inay samayso laakiin waxa ugu muhiimsan in muwaadinku uu qaato fariinta caafimaad ee loo soo gudbiyey iyo awaamirta caafimaadka ee ku saabsan ee loo soo gudbiyey ee u soo gudbiyeen dhakhaatiirta iyo guddiga qaranka ee ka hortagga cudurka dilaaga ah ama safmarka ah marka waxaanu ku celcelinaynaa inaynu dhammaanteen u hoggaansanno fariimaha caafimaad oo tilmaamaha naysiiyay aynu raacno oo uu ka mid yahay kala fogaanshaha iyo inaynu socodka yarayno qaabkaynu noolnahay wax badan baa laga yaabaa inaanu inoo saamixin guryahaynu ku noolnahay sidaynu u noolnahay ehelka iyo qaraabada aynu nahay islaamnimada aynu nahay raximka aynu doonayno inaynu xidhiidhno intaasoo dhamme waxaa laga yaabaa inaanu inoo saamixin dee inaynu kala tagno oo kala fogaanno laakiin intaynu taxadiri karno waajibkaasi wuxuu saaran yahay qof kasta oo dee dareema inuu xanuunsanayana ama xumaad qabatana waxaa loo baahan yahay hay'adaha caafimaadka inuu la xidhiidho xukuumaddana waxaa looga baahan yahay dadaal intii ay qabatay labalaabkeeda iyo ka badanba waa looga baahan yahay arrinta ku saabsan baanka adduunka iyo deymaha laga dhaafay Soomaaliya sidaa madaxweynuhu soo gudbiyey waxaanu isku wada raacsannahay in Soomaaliya iyo Somaliland laba dalood ee jaar ay yihiin oo walaalo ah baankuna waxaanu leenahay waxa ku waajibay inuu si gaar ah ula kala dhaqmo Soomaaliya iyo Somaliland marka waa fariinta guud aanu u dirayno baanka taa madaxweynaha aanu xoojinaynaa
Soomaaliya Somalilandna waxa koob iyo sagaashankii bay isugu dambeysay waxay isugu jirkoodii koob iyo sagaashankii baynu ku dhawaaqnay madax bannaani inkastoo inaan helin dee ictiraaf laakiin dunidu waxay noola dhaqantaa Somaliland inaynu nahay waxaanu doonaynaa in Somaliland ahaan baankuna ula dhaqmo Somaliland wixii la siinayana toos loo siiyo waan cidna loo soo marin farinta ugu dambaysa ku saabsan commissionka labada xubnood iyadoo la marayo dariiqa sharciga ahayd in maanta ansixiyaan goluhu uu madax bannaan yahay madaxweynuhu sheegay laakiin waxaan u sheegayaa shacbiga inaan diidmadaasi waxba ka bedelaynin in doorashadii qabsoonto doorashadii way qabsoomaysaa arrinta xubnaha la diidayna tala la isugu noqonaya axsaabtu tala isugu noqonaysaa xukuumadduna saa madaxweynuhu sheegay way isku noqonaysaa golahana waa la talagelinayaa arrintaana xal doorashadii ku socoto ayaynu insha allahu ka dhalin doonaa sida ugu dhaqsaha badanna arrintaasi way u qabsoomi doontaa haddii eebba idmo laakiin waxaan idiin sheegayaa in arrintaasi waxba ka bedeli mayso dariiqii ay haysatay in doorasho aynu qabanno aad iyo aad baa u mahadsantihiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إلهي ما هذا سبحانه وتعالى إلهي كريم هذا. دواء أركتان إلى إن صدح الحسوب ما أنت يعني اسكم واقف نهاي. صدح ذا إشيو ما أنت تشرا ومدحونه كهرلي. اسكم واقف بانو كان هاي ساوي الشيئين لبدو قدومية هربا. إن حنون كوحوي حنون كان وعرى إلهي. ilaahay subxaana wa tacaala waa aragtaan sidii adduunkii inaga quwadda weynaa uga cawaadayo laakiin waxaa isku soo ururtay dawada u wanaagsan waxa weeye in qofku is ilaaliya qofku inuu naftiisa is ilaaliyo ayaa weeye hubka u wanaagsan taasoo ah inaan meelaha la isku yiman jiray laga tago salaanta la joojiyo innaga meelaha la isku yimaado marka laga reebo meelaha cibaadaysiga masaajidada waa meelaha jaadka waxaan kula talinaynaa haweenka iyo caruurta aabayaashood qaadka cunaan inay ku cadaadiyaan inuu qaadka iska joojiyo lanno qaadkaasi fara badan buu soo marayaa meesha laga soo qaadanaya kolayga wada aragto ilaa 100 qof baa isku yimaada sidii riyihii magaalada dhaameelka waxay la tahay dawladdu waxay sameynaysaa guidance bas hoggaan iyo talooyin bay bixinaysaa laakiin qofka ku jirta inuu talooyin ka qaato waxay la tahay in talooyin ka qaadano inagu ma nihiin dad bini aadan baynu nahay dad kama duwanin qaadkuna maaha awliya maaha waa shajaratu saquum la sheegay kitaabka lagu sheegay weeye laa taqna mataqaan gaajina kaa reebeen marka waxay leedahay bahalkaas ayaa maanta inagu halis u nahay kaa iska ilaaliya ma leeyahay tan labaad waxa weeye horta dawladda Soomaaliya ay ma jirtaa idin waramay Soomaaliya inagu Somali Republic baynu ahayn Somaliland marka 19 ma ku dhawaaqnay kala soo noqonay dawladnimadii midnimadii 2020kii 2022 bay ilaahay federal state bar sameysana qabaa'il ku sameysan 5 dawlad goboleed oo qabaa'il ku sameysan shantii wada ogto maanta ma wada fakshan gareynayaan dawladda dhexe tamada la baxday ee farmaajo madaxweynaha ka yahay ma dhaafsana Muqdisho 3 kilomitir gudaheeda lacagtan laga sii deynayaa maanta lacag ay Soomaali ay isticmaali karto ma Soomaali isticmaali karto laana waxa ka fiican ka horeysa lacagta nabadda ka horeysa in nabad oo lacagta meel lagu isticmaali karo lagu hormarin jirta dawa ogtiina meel lagu hormarin karo ma jirto wadadii islahaadis Turkigu ee afkooyi waa la jooji nabadgelyo xumaanteed lacagta waxa ka shaqeynaa man lobista oo ay qoladan farmaajo groupka ay dirsadeen waxaan ay lacag siiyeen in loo soo diyo lacagta waxa jira dilaalin lobis leeyahay adduunka oo ka dilaala kuwaas afarta bahashan ka daba shaqeeyay
يعني condition wanaagsan oo maanta Soomaali lacag lagu siyaana hadda cid la siiyo Soomaaliland baan la siiyaa oo nabadgelyo maanta iyo development ka u baxday waxa weeye lacagta waxa lagu talagalay in ku campaign gareeyaan yararka fiila Soomaali qabsaday in ku campaign gareeyaan lana dawlad aan dadkeedii ka wakiilahayn oo sharcigeedu ku socon Soomaali Itaaliya ku socon in oo 8 bilood u harsan tahay in ay hadda lacag loo sii deynaya lacagtuna ma hala si waa amaah kale waa amaah dul saaran financial breaching baa la breach yaa la yiraahdaa wali way ka tan imka qaadanayaan way ka interest badantay tii hore way ka interest badantay marka in dadka loo dhubo la waala maaha lacagta waxa la Soomaaliland wixii la siinayo des laba dal baan inoo isku tago mid uu dhisan yahay in wax ay saanil noo soo siiyo si toos noo siiya ayaan taa ku karnaa tan waxa inoo timi maanta iyaduna dhacday horta maanta wax la filaya mehen maanta shacabka reer Soomaaliland adduunka oo dhani iyo shacabka maanta wuxuu heli qataagay in labada xubnood la sii daayo oo inuu markaa u diyaar garoono doorasho waxaan aasada ka weeye qofka xildhibaankii waxa uu accountable u yahay xusbigii soo saaray wuxuu kale accountable u yahay constituency soo dooratay halka laga soo doortay MB iska socda adduunka wuxuu doona yeelaa horta lama arag saddex xusbi waxay isku raaceen oo siyaasadii waxa weeye saddex xusbi waxay ku qasbanaayeen laas ay baas gareeyaan saddexda labada xubnood in waxaan leenahay aqalku ha shaqeeyo ficiltanku ha ka baxa meesha ficiltan wadan laguma wadi karo wadan waxa lagu wada issues maxaa fiican maxaa qaldan maxaa wanaagsan waxaan leenahay imakana aqalku ha shaqeeyo arrintan way soconaysaa yaan lagu ceebooyin shacabka reer Soomaaliland doorasho u diyaar u yahay dawladdu doorasho bay u diyaar tahay asxaabtu diyaar bay u tahay cidii soo taagtaa dayadu ma isqaawisay oo xisiyaashay marka insha Allah taala waxaan leenahay in si dhaqso ah arrintaas inooga dhamaato adduunku wayna sugiyaa wadoogeed maalintii dhaweyto inuu heshiiska sameeynay durba lacag baa la soo daayay lacagtii macaawanadii adduunku waxay ku xidhantay doorashada 22 milyan oo dollar ba hadda on pipeline-ka oo ay bixinayso UN ayaa jira oo saa u daldalan de marka waxaan jecelahay inay xildhibaanadu ay xilkooda ka soo baxaan dadka ixtiraamaan qaranka ixtiraamaan international community ixtiraamaan ka codsanna insha Allah taala way ixtiraami doonaan